Assalaamu calaykum. Maanta waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago filim Amerikaan oo la soo saaray 2006 laguna magacaabo Snake on the Plane. Ku soo dhawaada muuqaalkeena iskana taxadara. filimku wuxuu ku bilaamayaa magaalo xeebeedka quruxda badan ee Hawaii halkaas oo wiil xirfad badan uu mootadiisa ku laafiyoonayo wadada markii uu keynta soo gaadhay waxa uu arkay aabihii oo ka laalaaday geed wuu naxay waxana uu isku dayay inuu caawiyo laakiin aabihii waxa uu sheegay inuu naftiisa kala cararo meesha intaa kadib waxa uu ku dhuntay meel aan aad uga fogeyn aabihii wuxuuna arkay baabuur uu ka soo degay in lagu magacaabo Kim oo ka ganacsada daroogada waxana uu aabihii oo xeel eraariya ku garaacay budka lagu ciyaaro baseballka ilaa uu ka dhimanayay Jones uu argagaxay waanu ka baxsaday goobta soo laabashadii guriga waxa uu daawanayaa warka ka soo sheegaya geeridii aabihii ee uu arkayay waxa uu maqlay sanqar ka soo baxaysa dhanka albaabka uu soo kacay waxana uu eegay daloolka albaabka waxayna ishiisu ku dhacday ciidamadii Kim oo wali daba socda isagoo argagaxsan oo aan garanayn meel uu ka baxo waxa si kadisa xagga dambe kaga yimid nin kale kaasoo ku qasbay inuu ku dhunto gidaarka waxana uu dilay ciidamadii soo weeraray Jones intaa kadib labadooduba waxay ka baxsadeen gurigii ninkii cusbaa waxa uu isbaray Jones waxana uu sheegay inuu yahay falayn oo ka socda FBI-da Mareykanka waxana uu weydiiyay sababta uu booliska ugu wargelin waayay maadaama uu arkay dilka aabihii Jones waxa uu ugu jawaabay inuu ka shakiyay boolisku inay la shaqeeyaan ninka dilka geystay falay uu la dhacay maskaxdiisa waxana uu sheegay hadii aanu FBI-da la shaqeynay naftiisu khatar galayso waxana uu ku qanciyay inuu markhaatiga ku furo ninka dilka geystay isagoo intaa u raaciyay inay u safri doonaan saacadaha soo socda magaalada Los Angeles Nafila iyo Jones waxay soo aadeen garoonka diyaaradaha ee Halula International Airport waxana la socda wakiil kale oo FBI-da ka socda waxay arkayaan rakaabkii oo qoorta u wada sunan yihiin ubaxyo laakiin iskumay mashquulin oo waxay u arkaan arrin caadi ah diyaaradii waxay u duushay magaalada Los Angeles dhammaan rakaabku waxay ku raaxaysanayaan safarkooda wax walbana waxay u muuqdaan inay fiican yihiin qaybta dambe ee diyaaradda waxaynu aragnaa sanduuq lagu xidhay saacad ay ka hadhay 2 daqiiqo saacadani markay istaagto waxa sanduuqa ka soo bixi doona masas aad u tiro badan masaskan waxa meesha dhigay ninkii dilay Jones aabihii kaasoo doonaya inuu soo afjaro Jones iyo cidda la socotaba laakiin nasiib daro cidina ma oga waxa sanduuqan ku jira shaqaaluhu waxay shaqadooda u wataan sidii caadiga ahayd dhanka kale Flame waxa uu ku socdaa xagga hoose ee diyaaradda si uu u soo raali geliyo Claire oo ah madaxa shaqaalaha diyaaradda taasoo ka aqbashay kana qaadatay raali gelintiisa 2 daqiiqo ee u harsaneyd sanduuqu waxay noqotay eber intaa kadib waxa qarxay sanduuqii masaskiina waxay ka buuxsameen diyaaradii lamaanahan oo kamid ah rakaabka diyaaraddu waxay si wada jira u soo galeen musqusha waxayna iska fureen saqafka sare ee suuliga si aan loo maqlin codkooda laakiin si kadisa masaskii ayaa uga soo galay meeshii ay dalooliyeen labadooduba waxay bilaabeen inay qayliyaan oo garaacaan albaabka musqusha waxa maqlay 2 kamid ah shaqaalihii diyaaradda laakiin waxay u qaatay inay lamaanahan ku raaxaysanayaan meesha mid kamid ah masaskii ayaa jaray xarkihii mishiinka diyaaradda duuliyayaashii waxay dareemeen inay ciladi jirto dhanka kale masaskii waxay ku fideen meel kasta oo kamid ah diyaaradda mid kamid ah rakaabka diyaaradda ayaa soo galay musqusha waxana uu madaxa kaga kaajay mid kamid ah masaskii oo ku jira godka suuliga maskii wuu weeraray waxana uu kaga dhigay xubinta taranka ninkii waxa uu isku dayay inuu iska fujiyo laakiin uma suurta gelin dhinaca kale waxaynu aragnaa mas ku soo gurguuranaya gabadh sakhraansan oo ku raaxaysanaysa dareenkeeda nasiib daro dhibaato kale ayaa ku soo kordhay diyaaradii kadib markii ay soo gashay meel ay cimiladeedu adag tahay mid kamid ah duuliyayaashii ayaa galay qaybta hoose ee diyaaradda si uu u xalliyo cilada ku timid diyaaradda laakiin nasiib xumo waxa cunay masaskii duuliyihii labaad ayaa u yimi waxaana u arkay inuu dhintay waxa sidoo kale aragtay Claire oo kamid ahayd shaqaalaha diyaaradda waxayna soo aaday dhanka Flame iyadoo doonaysa inuu sheegto waxa diyaaradda ka socda Flame wuu soo baxay waxaana uu arkay inuu dhintay duuliyihii labaad ee diyaaradda oo lagu magacaabo Rock waxa uu isku dayay inuu kaligii diyaaradda xakameeyo halka Claire ay dib ugu soo laabatay rakaabkii si ay niyadda ugu dejiso laakiin gariirka diyaaradda awgii shantadihii rakaabka ayaa soo daatay masaskii waxay si toos ah u weerareen rakaabkii waxaynu aragnaa gabadh uu masku ka galay afka taasoo isku dayaysa inay iska soo saarto dhanka kale waxaynu aragnaa Flame oo la tacaalaya saaxiibkii oo uu qaniinay mas xaaladii diyaaraddu waxay isku bedeshay buuq iyo qaylo dadku waxay u dhimanayaan sunta masaska gabadhii sakhraansaneyd waxa laabteeda ka soo baxay mas waxana uu ka qaniinay isha dadku waxay isku dayayaan inay ordaan laakiin ma jirto meel ay u baxsadaan diyaaraddiina waxa ku yimi burbur uu sababay isku dhexyaaca dadku qaar kamid ah dadku waxay isku dayayaan inay la tacaalaan xaaladan adag laakiin masasku ma aha qaar joogsanaya mas weyn oo kubra ayaa ka soo ag muuqday 2 ciyaal agtooda halka uu nin kale ku dhintay jiidhka dadka
mid ka mid ah rakaabka ayaa isku dayay inuu isku qariyo musqusha waxaana ku soo dhacay meydka lamaanihii uu cunay masku qof walba waxa isku dayay inuu la cararo naftiisa dadka intii soo hadhay iyo Falayn waxay isku dayayaan inay gidaar ka samaystaan boorsooyinkii dadka si ay gaashaan uga noqoto masaska dhinaca kale waxaanu aragnaa gabadh jiifta dhulka oo uu ku soo socdo mas laakiin waxa badbaadiyay nin kale oo dhabarka ku qaaday Falayn iyo Claire waxay heleen laba wiil oo mid dhaawac yahay dhinaca kale gabadhii waayeel oo lagu magacaabo Nemo ayaa maqashay ilmo yar oo ka qaylinaya diyaaradda dhinaca masasku joogaan waxay soo fuushay gidaarkii boorsooyinka ka samaysnaa iyadoo heshay ilmo yar oo yaala kursi halisna ugu jira in la weeraro way soo qaaday waxaana dhabarka ka qaniinay mid ka mid ah masaskii ugu dambeyn waxay ku guuleysatay inay u keento hooyadii dhashay xaaladdu way sii korodhay Falayn wuxuu wakiilkii kale u qaaday xagga sare isagoo isku dayay inuu waco Haris oo ka mid ah kooxdiisa waxaana uu sharaxay sida xaaladdu ay tahay Haris wuxuu garowsaday culayska ay arrintani leedahay waxaana uu isugu yeedhay dhammaan kooxdiisii isagoo u sheegay waxa jira waxaana uu ka dalbaday inay keenaan qof khabiir ku ah xagga masaska dhinaca diyaaradda waxaynu aragnaa xaaladda sii xumaanaysa ee wiilka yar halka ay hooyadii isku dayayso inay sunta ka nuugto iyadoo isticmaalaysa xirfadeeda dhanka kale wakiilkii Haris wuxuu ku guuleystay inuu la kulmo khabiir ku takhasusay masaska waxay ku soo qaadeen gaariga waxayna la hadal siiyeen Falayn dhakhtarku wuxuu tilmaamayaa inay jiraan wax diyaaradda saaran oo ka cadhaysiinaya masaska waxaana uu ka codsaday inuu sawirro uga soo qaado masaska si uu u garto sunta ka hortagga Falayn wuxuu rakaabkii ku amray inay sawirro masaska ka soo qaadaan si ay ugu diraan dhakhtarka dhinaca kale duuliyihii diyaaradda waxa qaniinay mas waanu miir beelay nasiib darro diyaaraddiina waxay noqotay mid aan xasiloonayn maadaama oo aanay lahayn wax duuliye ah Falayn wuxuu dadkii ku amrayay inay u yaacaan qolka duuliyaha halkaasoo Claire ay kula dagaalamayso mas weyn taasoo markii dambe u suurta gashay inay disho Falayn iyo Claire waxay isku dayayaan inay kaantaroolaan diyaaradda laakiin way ku fashilmeen waxa batay weeraradii masaskiina waxay soo gaadheen goobta dadkii waxay isku dayayaan inay xoog ku soo fuulaan jaranjarada intaa kadib waxa saqafka sare ka soo dhacay mas weyn oo anakonda ah nasiib darro waxa soo gooday jaranjaradii anakondihiina waxa uu cunay dadkii Falayn waxa ku guuleystay inuu kor u qaado diyaaradda shilna ka badbaadiyo waxaana si kadisa qolkii uga soo muuqday duuliyihii oo soo miraabay kaasoo uga mahad celiyay siday u badbaadiyeen dadka dhanka kale dhakhtarkii waxa uu sheegay inay adag tahay in xal loo helo masaskan maadaama oo aan suntooda laga helaynin dalka dhinaca diyaaradda waxaynu aragnaa shaqaalihii oo u dhaawac soo gaadhay taasoo sababtay inay dhimato mid ka mid ah shaqaalaha oo lagu magacaabo Nemo Claire waxay ka murugoonaysaa waxa dhacaya laakiin Falayn ayaa isku dayay inuu dejiyo niyadda diyaaraddu waxay iminka dul maraysaa meel saxara Falayn wuxuu ka codsaday rakaabka inay xajistaan diyaaradda waxaana uu rasaas ku dalooliyay mid ka mid ah daaqadaha diyaaradda si ay hawadu u jiidato masaska waxayna ku guuleystay inay iska kala yareeyaan masaska dhanka kale Falayn iyo Troy waxay duuliyayaal ka noqdeen diyaaradda Troy isagoo faraxsan waxa uu wacay towerka halkaasoo ay saraakiishii ka cadhoodeen habdhaqankiisa si kastaba ahaatee waxay sheegeen inuu yahay ka kaliya ee xakamayn kara diyaaradda Troy waa nin isku kalsoon waxaana uu ku amray inay nadiifiyaan dhabaha ay diyaaraddu ka soo degayso rakaabkiina wuu guubaabiyey si ay ugu dhiiradaan soo degista dagaal iyo halga badan kadib waxay ku guuleysteen inay nabad ku fadhiistaan dhulka waxaana uu filimku ku dhammaanayaa rakaabkii oo aad u faraxsan isla markaana badbaaday waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar galanbalaalkana furo si ay kuu soo gaadhaan muuqaalada cusub ee halkan ku soo gudbino